kaysan ee rabadaanta aase ku horreyn wargeyska The Guardian ee ka soo baxa dalka Britain oo ka mid ah wargeysyada ugu magaca dheer ee wadankaasi ayaa waxa maqaal dheer uu maanta ka qoray waxa uu ku tilmaamay tirooyinka sii siyaadaya ee xanuunka coronavirus oo uu sheegay inuu inta badan ku dhacayo dhalinyarada wargeyska The Guardian oo maqaal dheer ka qoray arrintaasi ayaa waxa marka hore uu ka waramay in boqolkiiba 90 arrimaha la soo xaqiijiyay ama dadka laga helay buu yiri xanuunka coronavirus ee magaalada Muqdisho badankoodu ay dhalinyaro yihiin buu yiri inkasta oo dawladdu ay qaaday buu yiri tallaabooyin xoog leh oo markaas la doonayo in lagu baajiyo faafitaanka xanuunka coronavirus waxaa wargeyska The Guardian uu sheegay inay aad iyo aad u adkaatay in habdhaqanka dadka Somalida wax laga bedelo wargeyska The Guardian waxa uu sheegay in dadku ay wali masaajidadii ku tukanayaan oo ay meelaha la isugu yimaadana ku kulmayaan ee ay ka mid yihiin makhaayadaha iyo meelaha laga qaxweeyo ama shaah laga cabo oo markaasi halistu ay tahay in xanuunku meelahaasi ku faafo wargeyska The Guardian ayaa maqaalkan uu maanta qoray waxa uu ku soo xigtay gabadhu magaceeda ku sheegay Khadiija Xasan oo degan magaalada Muqdisho gabadhaasi oo sheegtay in ay filayso in xanuunkaasi coronavirus uu soo gaaray xaafadda ay degan tahay gabadhaasi ayaa wargeyska The Guardian waxa uu sheegtay in imka gurigeeda aanay ka bixin muddo 2 toddobaad iyadoo sababtuna ay tahay iyadoo astaamihii xanuunka coronavirus dad qaba ay ku aragtay xaafadda ay degan tahay waxa ay sheegtay in dadka xaafaddooda degan qaarkood urti ay ka luntay iyo dhadhankiiba oo markaasi astaamihii xanuunka dureyguna uu hayo oo iyadu markaasi ay iska ilaalisay tiri in ay dadkaasi dhex gasho toddobaadkii aynu ka soo gudubnay ayaa dawladda dalka Soomaaliya sida uu sheegay wargeyska The Guardian waxa ay soo rogtay waqtiga habeennimadii bandoa iskuuladuna waa ay xidhnaayeen jidadka waaweyn ee magaalada Qudhooduna waxa uu sheegay inay buuxaan wargeyska The Guardian oo ka hadlayay fikradaha ay dadka Soomaalidu badana ka qabaan xanuunkan coronavirus-ka ayaa waxa uu sheegay in ay tahay mid aad iyo aad ugu faaftay dalka Soomaaliya in xanuunkani uu yahay buu yiri mid ku dhaca gaalada oo kaliya oo dadka muslimiinta aanu markaasi ku dhicin waa sida dadka Soomaalidu ay rumaysan yihiin waxaana wargeyska The Guardian uu sheegay in dadka Soomaalidu ay qabaan in xanuunkani uu yahay mid xagga Alle ka yimid oo markaasi gaalada lagaga jarayo caburiska iyo cadaadiska ay u geysteen dadka muslimiinta fikradahaas oo kale ayaa waxa qaba buu yiri ururka al-shabaab wargeyska The Guardian ururkaasi oo qaybo fara badan oo dalka Soomaaliya oo koonfurta iyo bartamaha ka taliya wargeyska The Guardian waxa uu sheegay in ay adag tahay in la xakameeyo xanuunka coronavirus marka la eego xaafadaha isku raranka iyo meelaha qunyardegada ee ay degan yihiin buu yiri dadka barakacayaasha ah meelahaasi oo lagu qiyaasay buu yiri inay degan yihiin 800 oo kun oo qof oo ku nool magaalada Muqdisho oo markaasi ay adag tahay buu yiri wargeyska The Guardian in la ilaaliyo masaafada ay dadku isku jirayaan iyo meelaha ay dadkaasi ku jiraan xariyaha oo aanay xaaladahoodu wanaagsanayn oo markaasi dawladda Soomaaliyana aanay waxba ka qaban kareynin buu yiri sida loo joojin karayo ama loo baajin karayo in xanuunkaasi uu faafo waagaagintaasna ka gudubno maqaalkii wargeyska The Guardian ee kamida wargeysyada ugu waaweyn ee wadanka Britain uu maanta ka qoray xaaladaha xanuunka coronavirus ee magaalada Muqdisho